waxaan maanta halkan isugu kin yeedhay inaan idinka soo gudbiyo warmurtiyeed ku saabsan ama xambaarsan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka Tukarraq iyo nabadda ay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba diyaarka ula tahay guud ahaan beesha caalamka iyo mandaqada Geeska Afrika. sidaad ka wada warqabtaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 28 guuradii ka soo wareegtay go'aansiyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madax bannaanida qarankan 18 May wuxuu fagaarihii lagu xuseeyay madaxweynuhu ka cadeeyay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu diyaar u leeyahay nabadgelyo buuxda cid kasta isla markaana xukuumadda Soomaaliland ay sii deynayso maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukarraq ee gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dambeeyeen maamulka farmaajo. maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus magacyadooduna ay kala ahaayeen كو عبد الناصر عثمان علي عبد النور محمد عبد الله محمد سعيد يوسف علي فارح آذن محمد عبد عينب عبد الحافظ عبد الله حلانه حسين سعيد ورسمه عبد الناصر محمد نور محمد أبشر آذن إبراهيم حسن صلاد أحمد محمد أحمد سعيد دعالة علي مهد نور علي فارح محمد عبدي madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku maanta uu ku saamaxay wareegta madaxweynuhu markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad fikradiisa 5aad markuu arkay qoraalka xeeraryaha guud ee ciidamada qaranka ee ku taariikhaysan 26 bisha 5aad 2019 markuu tixgeliyay nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika iyo bisha barakeysan ee Ramadaan markuu la tashaday cid ay qusayso wuxuu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu saamaxaad u fidiyo maxaabiista dagaal ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo qabteen dagaalkii Tukarraq kuwaas oo magacyadoodu kala ahaayeen kuwaan idin xaadirey tiradooduna ay dhammayd 14 maxbuus. tallaabadaasi waxay muujinaysaa Soomaaliland inay mudnaan weyn siinayso amniga iyo nabadda. xukuumadda Soomaaliland waxa ka go'an ahmiyadda weyn ay nabadgelyadu leedahay taasoo beesha caalamka iyo mandaqada Geeska Afrika u cadeynaysa inay Soomaaliland diyaar u tahay xoojinta nabadda. haddaba Soomaaliland waxay u aragtaa shaqooyinka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu ku wado dawladda Somaliland inuu hurinayo maamulka farmaajo. waxaynu ognahay dabka ka holcaya Kismaayo, Galmudug, Hirshabeelle, Puntland iyo Muqdisho inuu yahay colaad iyo cadaawad uu dabada ka riixayo maamulka farmaajo. sidaa daraadeedna Jamhuuriyadda Soomaaliland xad waxay la leedahay oo kaliya maamulka goboleedka Puntland ee Soomaaliya. haddaba wixii khilaaf ka dhaca xadka waxay Soomaaliland diyaar u tahay in lagu xalliyo nabad iyo isafgarad buuxa lagana fogaado dhibaatada laga soo maleegayo maamulka farmaajo. ugu dambeyn xukuumadda Soomaaliland iyadoo danaynaysa nabad ku noolaanshaha iyo daris wanaaga waxay soo jeedinaysaa in duruufaha adag ee ku gadaaman mandaqada Geeska Afrika ee leh dhaqaale xumada, faqriga, abaaraha iyo adeegii asaasiga hoos u dhacay la iska kaashado lagana waantoobo dagaallo iyo colaado hor leh oo dib loogu celiyo guud ahaan mandaqada Geeska Afrika. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.